maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد معلمين الأفاضل أهلا وسهلا بكم مرة ثانية وثالثة والرابعة كل ماذا إنه جوكتدا أها أيانو مانتنا كل ما إنه هدي الله إدمه وحقعنا إن كجرا كتاب كيس الدحاد صفق الثالث الإعدادي وحنكسو بحنا دور وحده ما أنت وحن بالله بدونا الوحدة الرابعة وكم ذا كتاب الصف الثالث الثانوي. الوحدة الرابعة وحي كان ليس حركات التحرير الصومالية ماركتي دغدغاغيدي قومن ودونك الصومالية دغدغاغيدي قومن ودونك الصومالية وحي قيب كتاي تاريخ ذي صوماليا تاريخ الصومالية طبعا waxaan soo marnay taariikhdii hore waxaan soo marnay taariikh islaami waxaan soo marnay taariikh Soomaal fi qarn 19 isticmaalkii iyo qaybintii ayaan ku soo baranay wahdada ama cutubka saddexaad cutubka afaraadna waxaan ku baran doonaa qaabka iska caabinta Soomaalidu ay kala hortageen isticmaalkii gumaysiga reeyo حركات التحرير waxaan ku xaqiijinaynaa ahdaaf fara badan Soomaalida maaragtay gobonnimadoonkii dhaqdhaqaaqyadii gobonnimadoonka waxaan ku xaqiijinaynaa min khilaal afar dersi oo maaragtay aan ku baran doono oo kala ah الحركات الدينية المسلحة حركته هوسنا حركات القومية في الجنوب الحركات القومية في الشمال وحركات القومية في ساحل الصومال الفرنسي أيام برندونا وحيكلا هايين قابكي أولسنايين طبعا وها هردع أن كردقان كرنا إنتانا أهداف تجارين وهن هردع كردقان كرنا إن الطبيعة الرعوية للمجتمع الصومالي المجتمع الصومالي أو رغم كسر أثناء حول الجرن ماذا أو إسلام ككل جنا وحو ديدنا أجنبي دائما هدي جارهان هدي اسكو دين أهين كم بسيجرته صومالي وحي هلا وحصوق علي ماركتي عدو غير يوروب oo qabsaday dhulkoodii oo kala qaybiyay sidaan ku baranay ku aragnayba fasalkii saddexaad maaragtay wahdadii saddexaad oo cutubkii saddexaad kadibna waxay arkeen in dhulkoodii oo gacanta u galay cadawga sida awgeed ay lama huraan noqotay inay ka dhidhiyaan oo isku dayaan inay dhulkooda xornimo u raadiyaan isku dayga asaga ahi wuxuu ahaa labada waji marna wuxuu ahaa mid hubaysan oo ay hogaaminayeen culimadii markaas jiray culimadii Soomaaliyeed ayaa markaas hogaaminayay muddo waxay jirtay ugu dambe maaragtay waxay soo bilaabatay aakhirkii qarnigii 19aad iyo bilowgii qarnigii 20aad ayay jirtay muddo ilaa 20 sano 25 sano ah ayaa hawshaas hogaaminayeen culimadu oo dagaalka jihaad ku saleysan looga hortagayay reer Yurub ayuu socday kadibna reer Yurub way ka adkaadeen Faransiiska Ingiriiska iyo Talyaaniguba waxay ka adkaadeen awooddaas hubaysnayd waxayna muddadii afartameeyadii iyo soddomeeyadii qarnigii 20aad ma aanay jirin awood badan oo hortaagan Ingiriiska kadibna waxa bilowday afartameeyadii wixii ka dambeeya waxa bilowday حركاتكي أما دقائق قومي جاها
ama nabadgelyo iyo siyaasad wax ku raadinayay aan hub wax ku raadinayn taa kadib waxaan bilaabi doonaa darsiga koowaad si aan u xaqiijino ahdaaftaas ayada ah waxaan bilaabi doonaa darsiga koowaad oo xarakaat diiniya almusallaha alxarakaat diiniya almusallaha oo ay hogaaminayeen culummada Soomaaliya ayaa waxay bilaabdeen laga bilaabo aakhirkii qarnigii 19aad 1890kii 1999 يعني آخر كي قرن جي سجالي تونادي بلاودين درسيان أهدافته عن كحقي جنينه وحن كبرانينا وحر معلنك وحلقة ربا إنه حقيقية إن حركات التحرر من الاستعمار في الصومال لقرته يا أهايين يا كمسؤولها يا هو جامنا يا إلا برته وحلقة ربا معلنك إنه هدف كحقيقية إنه أرضه راعده وتتبع التطورات السياسية المهمة في تاريخ حركات التحرر في ظل الاستعمار يي أهايين وهو قرنيا دور العلماء القيادي معناته هوغانكي علماء أي كل هايين دوركي علماء كل هايين هوغان دور هوغانيتكي أي حركات كاس كل هايين أي برنيا يصدر حكما تجاه بعض الشخصيات وهو معناته تسالين يا ضد قيمين أيو سبعين يا أردق النفسي قيمين سبعين يا أو قيمين أيو دورك أي كل هايين علماء في النهاية يستنتج السمات العامة لحركات التحرير محاكد حي في هذه المرحلة مرحلة الحركة الدينية المسلحة هل هناك وحكد حي مجرين السمات العامة المشتركة بين تلك الحركات في هذه الفترة تسالها عن ربنا إن هدفك أن تساله وقدرنا حقيقتيسا إيقابك اللغو حقيقينيو إيقابك اللغو هبنيو إلا حقيقيي إن أنه تساله كدغنا ويه درسيغا سيدين كو حقيقينينا هدف كان سيدين كو حقيقينينا هدف كان إن وحي كدخيي أن قرنو أسباب هزيمة الحركات الدينية محي أهيد سببه حركات وحانيري ولغا ادكاداي حركات كاس او دينيغا اها او هوبسنا او انجليزكا iyo talyaaniga iyo faransiiska ba hub kala hortagay aakhirkii ugu dambeysay 1925 intaan la gaarin ba waa la burburiyay waana laga adkaaday wax awoodaho kale oo muddadii 20kii wixii ka dambeeyay ma aanay jirin ilaa 40kii oo qaab kale ay u bilaabatay maxay ahayd marka asbaabtay u jabeen هذه الحركات waxaan ku baran doonaa يا أعزائي waxaan baran doonaa asbaabtii ay u jabeen waxa kamidha القوى العسكرية المفرطة للمستعمر أود عيداً أو هيستي أما هب أو إنجليزكو هيستي أما تليانو هيستي أما فرنسيسكو هيستي استعماركو أود عيداً أو هيستي أي قيب كأهد عدم توحيد النضال ماركتي بسبب النظام القبلي سوماليدو ممدي سنين سوماليغا جوغا وقوي سوماليغا جوغا ساحل الصومال سوماليغا جوغا كوفورتا سوماليغا جوغا دولكا امحاردا سوماليغا جوغا NFD اما SFD ممدي سنين waxa aad saameyn u lahaa nidaam القبلي reehbel deegaano kala gagadisan ayay ka jirtay qolo kastaabana dhibaatada halkeeda ayay ku haysatay fikrad guud iyo cid u soo baxday oo juhuudaas iyo xarakaadkaas midaysayna ma jirin xilligaas sidaas awgeed عدم توحيد النضال سبب ay ka ahayd inay jabaan اتساع المساحه الجغرافيه وصعوبه الاتصال طبعا Soomaaliya waxaan ka hadlaynaa 1 milyan iyo rubuc kiiloomitir murabbac aan ka hadlaynaa 1 milyan iyo rubuc kiiloomitir murabbac ayaan ka hadlaynaa iyo waxaan ka hadlaynaa dad xoolo dhaqato aan ka hadlaynaa isgaarsiintiisu ay tahay geel inay raacaan ama ay lugeeyaan isgaarsiintu tahay xilligaas waxaan ka hadlaynaa 1800 iyo 1900 bilowgeedii idan اتساع المساحه الجغرافيه ودheer مساحado weyn iyo isgaarsiinta oo aad u liidatay
تدني الوعي وحكملها إن وعي حتى سياسات وآذه سيء في أوساط القيادات التقليدية هجان كمركز جري أو هو حال هجان دينات وهذا مركز هجامين أي ماركتي هجامين أي حركاتك جهادك أي هجان لقن ومركز أتليني بالشدة مركز هجان كدقن كأي هجان كدينات لبضوا وعي سياسات أو ماركتي مديسان أما ماركتي بسيل ملهي حلقاس أسباب تاسودن أو أرورتي وحي كانتي آخركي إن قميسيقو كادو قيب تاس هوري حركات الدينية المسلحة أو أي هقامينيسي علماء إسلامك أو أن تسالة كسو قادة كرنو سيد محمد عبد الله حسن أن تسالة كسو قادة كرنو ninka la yiraahdo Sheekh Xasan Barsane aan tusaale ka soo qaadan karno culimo badan oo aynaan hadda magacyadooda soo koobi karin Sheekh Bashiir Sheekh Yuusuf aan ka soo qaadan karno culimadaas faraha badan ee tixna laga soo bilaabo Djibouti waqooyiga Soomaaliya koonfurta dhulka Amxaaradu haysato iyo kan Kenya haysato intaba wacyigaasi wuu jiray laakiin ma mideysnayn ahdaaftaas asbaabtaas afarta ah iyo asbaabo kale oo la mid ah oo tusaale iyo sambal ka soo qaadanay ayay u jabeen xarakadahaas fi waqtiga hore akhyaaray markii aan nimaado qiimeynta ardaygu oo isqiimeynayo darsigan wuxuu isku qiimeynayaa inuu gaaray natiijadii iyo hadafkii aan ka lahayn inaan xaqiijino inuu xaqiijiyay baan rabnaa inaan hubino استنتج سمات العامة لهذه الحركات يعني محي أهد أساميه كدحيي حركاتك دغدغايدي قبل نودون في الصوماليات في هذه المرحلة الأولى مرحلة علماء هجامينيسي وأهد حركات دينية مسلحة محي أهد وحكدحيي وحي أهايين أسبابه كاني إن الجبان أي هذا وحي كدحيي أسبابه أفرتها oo sababteeda u jabeen ayay ahaayeen wixii ka dhaxay idan waan xaqiijinay hadafkan waan ka gudbaynaa waxaan tagaynaa darsiga labaad oo ku saabsan al-haraka al-wataniya dabcan marxaladaas markay jabeen 1920kii Sayyid Maxamed iyo Daraawiishtii ay ku jabeen iyo wixii ka dambeeyay muddo 20 sano ilaa 1940kii ma jirin wax isku dayaho macna badan leh oo laga la hortagay Ingiriiska ama laga la hortagay Faransiiska ama laga la hortagay Talyaaniga kadib 1940kii wixii ka dambeeya waxa bilaabatay qaab kale oo looga hortagay maaragtay isku dayo looga hortagay isticmaalka laakiin ku dhisnaa qaab xisbiyaal siyaasadeed oo gobonnimo doon ah oo aan hubeysnayn oo siyaasad iyo maaragtay wax ku raadinaya inay dalka ka xoreeyaan dariiqa oo silmi ah si nabadeed ay ku raadinayaan wixii ka bilaada taasa marka waxay bilaabanaysaa waxay ka jirtay koonfurta waxay ka jirtay waqooyiga sidoo kalena waxay ka jirtay saaxil Soomaal oo Djibouti loo yaqaan hadda waxaan soo qaadanaynaa saddex darsi oo saddexdaas qaybood aan ku ifinayno waxaan ka bilaabaynaa حركاتكاسي كوفرتا سيده اي اوغا بلاونين حركه القوميه الوطنيه بالجنوب maxay ahayd القوميه الوطنيه معناها waxaan kala saaraynaa الدينيه المسلحه oo hore oo culimadu hogaaminaysay laakiin markaan leenahay القوميه الوطنيه waxaan leenahay ujeedadeedu ma ahayn jihaad mana hubeysnayn diin culimana ma hogaaminaynay dhalinyarada ahsaabta ayaa hogaaminaysay taasaan u jeednaa darsigan labaad waxaan ku xaqiijinaynaa cadad min al-ahdaaf laakiin sida caadada noo ah waxaan tusaale ka dhiganaynaa hadaf kamid ah ahdaaftaas oo مثلا tusaale ahaan aan leenahay ظروف نشأة الحركة الوطنية في الجنوب sidee bay ku aasaasantay حركة الوطنية في الجنوب sidee ku aasaasantay حركة الوطنية waa hadaf ka dhiganaynaa sidaan ku xaqiijinaynaa aan ku baraynaa adiguna waxa inta kale ayaa sidaas ku xaqiijinayso aad ka raadsanaysaa manhajka iyo kitaabka oo aad xaqiijinaysaa macallinkaygu sideen ku xaqiijinayaa marka hadafkan waxaan ku xaqiijinayaa
كاللبات نشاط كاللبات أو صفحة سجاشني سيدت كتاب كان سجاشني سيدت كتاب كان نشاط كاللبات وحوليه هاي أرضه وحوليه هاي أقرأ وأتوصل إلى ظروف نشأة الحركة الوطنية القومية بالجنوب أو صوماليا وحلو يقالوا بالصوماليا وحلو يقالوا أرض جيبا وحوربا إنه أجاده ظروفتي أي كو مركز هالكاس وحو آخرنا يا سي جهرية أما سي سرية أيوة آخرنا يا أما سي جماعية ترتنا أيها المعلم أكد البنيسة أرضها إنه كترتمان سو سارستا sidii ay ku dhalatay xarakadaas naskaas isaga oo nashaadkaas oo qeexayo oo ku qoran ayaa wuxuu oranayaa أثناء الحرب العالمية الثانية تابع الصوماليون الوعود البراقة لدول الحلفاء ومع سيطرة بريطانيا على مستعمرة إيطاليا طبعا كتاب كان حقوق ريا باللغة العربية طبعا مركان عربي آخر إنه وحان نتوقع إن المعلمين الأفاضل أنتوا ذبذري أي فهميان يو أف صوماليا أو يو إنجليش أنت بوقوبح الدونا وحا مركا إنجليزكا سيطرت بريطانيا على مستعمرة إيطاليا عام 1942 فرتين لبادي أي لوريكتي إنجليزكو دولكي إيطاليانيا مركاسنا الصوماليدو وحي دريمين إني هلي دونان xornimo oo ay faashistihii Talyaaniga ay ka xoroobi doonaan waxay arkeen in imbradoorkii Ethiopia Haile Selassie oo u soo laabtay xukunka kaasoo Talyaanigu horay uga rideen ayna gacan qabteen Ingiriisku oo ku soo celiyeen xukunkiisii taasoo ku dhalisay Soomaalida amal iyo niyad sami inay ayaguna sidaas oo kale xorriyadooda oo heli doonaan oo Ingiriisku oo taageeri doon taasa waxa ka bilaabatay marka inay Soomaalidu bilaabaan xaraka qowmiya oo daati taabic silmi oo nabadgelyo wax ku raadinaysa iyo siyaasad oo aan dagaal wadin darsigan markaan ka baxno waxaan tagaynaa ulakhas ظروف هل أيها المعلم الفاضل ما حقيقي هدفك لو دن لها أيها المعلم الفاضل ما حقيقي هدفك لو دن لها وحد أغانيسا إن الحقيقة إن كلا ظروف نشأة الحركة الوطنية القومية بالجنوب مركي أردقو مركي بلسو بودو وهدي تويهين يهدي اللباتيهين بهال مرق عنها ودتاقان إنه كجوابان سؤاشات والنوع لقو أغان كرو إن هدفك حقيقوبي هل أرضي هدو تاقو الله هدو تاقو ولي إنت أرضي قار أنا قاعدت تاقين وأنا كالسوني قاري قارنين هدف كاسي ما حقيقوبين وإن هدنا طريقة كلا إيقاب كلا لقو عليه هدفك وان سو حقيقيني وحددي بان كسو حقيقيني وان كسو حقيقيني درسيكي وحا قابكي لو حقيقيني بان كتابكي كسو نشاطكيسي aan soo kasoo shaqeynay si wada jira aakhirkii hadana isqiimeyntii ayuu ku cad yahay in la xaqiijiyay ugu dambeystana as'ilatul wahda oo ugu dambeey su'aalaha ayuu ku cadaan doonaa in hadafkaas aan xaqiijinay waxaan tagaynaa darsiga saddexaad kamida الوحدة الرابعة درسك السدحات سيدا إذن شاقنبا الحركة الوطنية القومية في الشمال قورمي بلاوتي سيدا يكون بلاوتي في الشمال وحانو جيدنا دولكي إنجليسكو وكتليناي ومحمية الصومالية لديه جري درسك وحانكو برانينا عدد من الأهداف وجيدوين بان لأنهاي يتعرف على ظروف نشأة الحركة الوطنية في الشمال أيو قرنا يا أردو برنا يا أهداف الرابطة الوطنية الصومالية بالمحمية حزب قيل ليه جرى الرابطة الوطنية أهداف سيسي أيو كبرنا يا درسيان يحلل الوحدة بين الإقليمين وميلاد الجمهورية الصومالية وحو فلنغينا يا مثل ماذي لوذا قبل وقوي يكوفرته أو أي كدلتي جمهورية الصومالية وحو حصيا أما شيء تسالوين كم ذا أحزابتي وطنية أهد oo ka jiray
marka laga reebo الرابطة الوطنية أحزابتي كلا كجرتي وقوية أيوة وحكي شيء أهداف صورنا أيام أضل لأن هاي حقيقين هذا وحنا اللقوة حقيقين يا كل جود مقرر كمنهج كأي عدينية لكن تصالها دائما عن سوق هذا إنه ما أنت وحنا درسك عن سوق هذا إنه سيد أردق أتحيا أما أشياء أما أترنكرا أهدافتي حزبي الرابطة الوطنية ولا ده جري SNA كوها بالإنجليش. طيب محي هاد بان ده كرنا أهدافتي وحزبي قاسي لها أيام برانا إنما أنت وحان كو برانينا سيدين كو برانينا مركم محان كو حقيقينينا أهدافتي وحزبي قاسي لها محان كو حقيقينينا وحان كو حقيقينينا عن طريق النص التالي كتابك واحد كهليس صفحة أخواري خيارته شرفت له قال لي هذا وحان ربائنا إسلاس عنه واحد كهليس كتابك الصف 104 بقول أفر أي واحد كهليس النص التالي تأسس حزب الرابطة الوطنية عام 1951 كوي كنتم كي أيو أساس من حزب قاس SNL حزب وحليرا حزب الرابطة الوطنية SNL عليها حزب الرابطة الوطنية حزب الرابطة الوطنية حزب الرابطة الوطنية حزب الرابطة حزب الرابطة حزب الرابطة الوطنية SNL عليها. طيب ما هي أهداف تيسا؟ تشجيع التعليم الحديث والتقدم هرمرنتا وحبرشاد عصرقة هي هرمركة توحيد الشعب الصومالي وتحرير أراضيه في إطار الإسلام الإسلام كان لقوم بداية صومالي ذا دولكي سنة الله حرية القضاء على القبلية وما أدراك ما القبلية عن كان لنا كوني السقال بقول إيو كنتم إيو كو أهدافتي حزب قاسا وحكم ذهد القضاء على القبلية فما بالكم هدوا أن جوجنا لبكم إيا اللباتن ولي وحنكها لنا 4.5 سيدانو قدبنا القبيل كسيدانو قدبنا وما يغسنوا ولي وحن تاجنا هاي أهدافتي ضدك ماركتي وطنيين تاهي أي كوني سجال بقولي كنتنكي أفرتنكي يلحدنكي أي كهذا لين أيا ولي وحنا لهور تاجن هاي وحنا لهور تاجن قبيلكي سيدان وجود بكرنه يسيدان وجا تاسو حيروت على مركا دلنيرada hadda jirta inay maaragtay ku fakaraan qaabkii ay u xaqiijin lahaayeen amaashii ay xaqiijin waayeen aabayaalkood iyo awowyaalkood waan xaqiijinay hadafkii ahdaaftii baan baranay الرابطة الوطنية SNL xisbiga SNL waxay ujeedooyinka u lahaa oo saddex aan ku soo koobnay waxaan tagaynaa haddana النص التالي midnimada قاب كيكو هرقش لاحظوا الجماعة معلمين حكم ذا الوحدة بين الإقليمين أهداف أما وحدة سيدي الله حلل يا الوحدة بين وميلاد الجمهورية سيدي كوب اللعبتي سيدي كو بعضي سيدي كو حقيقودي وحانتقينا مركة النص التالي في 7 نوفمبر كل 1958 waxa warqad soo diray xisbigii aan dhahaynay SNL Somali National League SNL الرابطة الوطنية waxay dhahayaan waxay soo direen waxay ku soo wajaheen barqiyadaas waxay ku soo wajaheen الجمعية التشريعية الصومالية الجمعية التشريعية الصومالية ay ku soo wajaheen ayagu xisbi ay ahaayeen wali ingiriisku uma ogolaan xilligaas inay jamciyad yeeshaan inay baarlamaan yeeshaan inay xukuumad yeeshaan idan xisbiga midalayay nidaalka iyo xoreynta dalka waxay u soo qoreen warqadan waxay leeyihiin bi'tibaarina numathil al-aghlabiyya fi al-mahmiyya annagoo ka tarjumayna aghlabiyada
قبل وقوي فإننا نطالب اتحادا غير مشروط وحان طلبنا مدنمو عن شروط كحرنين مع صوماليا وحالا دي جري قبل كوفرو انجليز تليانو قميسانية في عام 1960 waxaa markaa la ogaa in koonfurta Soomaaliya ay xoroobayso 1960 waxay leeyihiin wanarqabo fi ziyarati lajnati muhaayada min al-umam al-muttahida al-mahmiya waxaan degdeg u rabnaa inay gudina loo soo diro qaramada midoobay ee noo soo diraan li'amal istiftaa caam lihadihi maaragtay lihada al-gharad ay baarayaan oo hubinayaan waxa ay rabaan shacabka waqooyiga Soomaaliya oo midnimadaas ay ka rajeynayeen inay ka heli doonaan waxa soo qoray الرابطة الوطنية 7 نوفمبر 1958 ayay ahayd maxay uga jawaabeen dhinacooda nimanka la yiraahdo الجمعية التشريعية في صوماليا ama koonfurta Soomaaliya ومن جانبها ردت الجمعية التشريعية maxay dhaheen إشارة إلى برقيتهم رقم 67 برقيتهم رقم كاودتي فإن عواطفكم تتفق مع رغبة كل صومالي أي دهان حيثما كان صومالي كالصومال كاستجوغا أي رغبة نوع استحي أو لو ذاك يسام بيدهان وأنا هدفك قف كستو صومالي أو كتاميو مقع الشعب كالصومالي كوفرات جمعية تشريعية الجمعية التشريعية وبرلمان كي مركز صوماليا حكومته حزبي أسوي ألبا يعبر عن امتنانها وشكرها لكم وتتضرع إلى الله إلهي وحي كبريان ليساعدنا أن نقوك القرب قالوا في رغبتنا المشتركة معركتي أهداف تاسان وذلينها الجمعية التشريعية في صوماليا في 8 نوفمبر 6 نوفمبر يعني 7 نوفمبر waxay ka jawaabeen 8 November waa bilowgii midnimadu halkay ka bilaabatay Soomaaliya iyo Waqooyi iyo Koonfur inay midoobaan halkay ka bilaabatay yaa bilaabay goormay ahayd tusaalahaas waxaan rabnaa inaad ardada la wadaagtaan oo la tuso taariikhdooda si ay wax uga fahmaan una xaqiijino ahdaafta tayib القيم التعلمي أهدافتان مركب وحي حقيقيا أهداف الرابطة الوطنية وجدوينكي وان soo baranay saddex hadafan hore u soo baranay sidoo kale الوحده بين الاقليمين waxaan naska ku soo baranay halkay ka bilaabatay yaa bilowgeeda laha goormay ahayd ayadana in la xasuusiyo ardadeena oo ay maaragtay ayuha almuallimuun alafadil ad galidaan juhdi badan si loo barto درسك أفراد حركة وطنية القومية بساحل الصومال وجنوبك وساحل الصومال ودولك هذا جيبوتي لو يقانو مقاهان حالدي جري ساحل الصومال طبعا وحلقوا برنا يا سيدوك لأهداف دورة أي أنكو برنا أنكو حقيقينا أهداف دورك أو أنكو حقيقينا وحقوق الرئي ظروف نشاط الحركة الوطنية في الشمال في ساحل الصومال يكتشف دور الزعيم محمود حربي لاحظوا هنا وحان هوستا كحريقينا دور كلها الزعيم محمود حربي في نشأة الحركة الوطنية بالساحل دور كونيكا أوغا كلها وتكو أركي دونتان كتابك سورة ديسة محمود حربي دور كلها المناضل يعلل استبعاد الزعيم من الحياة السياسية فرانسيسكو ويكفوا جايين محمود حربي آخر كي وقدام بيسنا وابدلين بتجارة الردين يكتشف ظروف نشأة الحركة القومية للرابطة القومية وهو أساس الدونا آخر وحلا يراهو الرابطة القومية الصومالية الرابطة الصومالية القومية وحيبقى أهد قول بيبقى أهد إن فرانسيسكا أو ميل كوبانا أو كودي حمر ويمد وحوبة سمية والصومالي دي شنطة هذا وسكاني ururba u sameeyay oo maaragtay hadhow lagu miday sidee lagu xaqiijinayaa marka ninka adarka doorkiisa in aan baranno su'aashu waxay ahayd door الزعيم محمود حربي ayaa rabnaa inaan xaqiijino sidee ku xaqiijinaynaa markaan u nimaado kitaabka waxaad arkaysaa الصفحة نشاط رقم 2 oo kamida صفحة 109 بقول إيه سجال أياد واحد كهليسا استنتج دور الزعيم محمود حربي ونشأة الحركة القومية بدأ الكفاح أيولية كتاب أساس قرنتها يتخذ شكلا
منظما منذ عام 1945 أفرتني شنتي وبالله النكاس أضجاهي عندما انتخب الزعيم محمود الحربي رئيسا لفرع حزب الوحدة الشباب أسوأ الفرع جيبوتي أيو مركز مضحكها أفرتني تضودي وحب بالله النقابة للعمال شغاله جيبوتي يوميدي أو كلمي أو سمي نقابة وانتخب رئيسا لها وقد توسع نشاط هذه النقابة حتى تألف منها الحزب الاتحاد الجمهوري حزبي سبد شيء برئاسة الزعيم محمود حربي وحاصرا أو أدواره أيو سوقبتي آخر كي مركة وحاد قرن كرتا دورك أولها يا وان وذا حقيقي نسي وذا جرى دورك أولها محمود حربي دورك أولها محمود حربي أيام وذا حقيقي وقدام بيسنا وحن تجينا أسئلة الوحدة وقدام بيسا وحدة وحن إصلاح حقيقي دور هدف وكم إذا أهدافتان وقدام بيستا أهدافتان وحن إصلاح حقيقي سي وذا جرى دور هدف معلن كان وحن لقربا لما أهدافتا سودان إني حقيقي إنه هبيو halkee laga xaqiijinayaa manhajka iyo muqarrarka laga helayaa xaqiijinteedii macalinka laga rabaa inuu ka diyaarsado oo ka soo saaro waxyaabihii lagu xaqiijinayay sidaan tusaalooyinka ensemble-kan aan ka tusnay oo raaco oo tehraaco ayuha almuallim alfaadil waa tusaalooyin yaryar oo kamid ah aan rabno inaan ku ifino toosh la rabo inaad tusaalayaashaas tixraacdo oo aad dhamaystirto حقيقينتا أهدافتا جود اللي قال هي وحدة أما كتابك أما دمان مقرر كأي منهجك وزارة أو كهوريا لما مردو إن شاء الله كعنت هذا سوق الدونة إلهي هيدن بركايو كل إلى تانك كل ما إنه كل مدة وما رحت حيس لنا وحمد الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmi